daawadayaal waa mar kale barnaamijkeennii maxaa xisaale ee toddobaad kasta hal mar barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa arrimihii ama dhowr qodob oo arrimihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay toddobaadkan hadeerto idlaaday ee hore waxaa Soomaaliya ka dhacay dhowr dhacdo markii ugu horeysay waxaa sheekooyinku ay ka soo bilowdeen kolkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku eedeeyay eedayn ku saabsan musuqmaasuq saacadaha ka hor ama maalmo ka hor inta uusan eedaynta madaxweynaha uusan soo saarin waxaa ka horeeyay in jaranka ciidanka badda Soomaaliya madaxda ka uu ra'iisul wasaaraha ku tilmaamay inuu boobayo dhul muqaal uu soo saaray jarankaasi ayaa waxa la arkayay isagoo ay ka dameyso dhismo guri ah oo qabyo ah oo soconaya waxaa sidoo kale ka dambeeyay wasiir dawle isaguna arrintaasi ka hadlay oo ah wasiir dawlaha la yiraahdo Mr Bashir Gope ayaa arrinta jawaab degdeg ah ka bixiyay saacada kadib markii jaranka ciidanka badda Soomaaliya uu ra'iisul wasaaraha ku eedeeyay in uu boobayo dhul danguud oo ay leeyihiin ciidanka badda Soomaaliya arrintaasi waxyaalaha si sahlay waxa lagu tilmaamay ama seetuunka si balaadhiyay hadalka Mr Gope General Gope waxa uu sheegay in dhulkaasi uu ahaa dhul yar gabihaaba ma uusan beenin eedaynta ma uusan qirinna sidoo kale balse waxa uu istaagay meel dhexdhexaad ah wuxuuna ku sifeeyay dhulkaasi inuusan ahayn dhul dawladeed ama dhul ciidanka ay leeyihiin dadka dhinaca shuruucda dhulka yaqaana waxa ay filayeen sida ay sheegayaan xeelarayaasha ku saabsan arrimaha shuruucda iyo musuqmaasuq in markaas la cadeeyo cidda dhulka laga iibsaday cidda lahayd ama cidda bixisay ee siisay ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxay filayeen inuu kala cadeeyo in uusan dhulkaasi lahayn ra'iisul wasaaruhu iyo in kale ama uusan isagu ahayn qofka dhisanaya si kastaba ha noqotee maalmo kadib ayaa ama laba maalmood wax ka yar ayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu soo saaray laba warqadood oo isdabagal warqadda koowaad waxay ku socotay sida u muuqata ra'iisul wasaaraha waxaana la sheegay in ra'iisul wasaaraha laba arrimood lagu eedeeyay waa ta koobaad ra'iisul wasaaraha in lagu eedeeyay wax loogu yeeray xilgudasho la'aan arrimaha doorashooyinka u xusaarnaa 14 bilood kadib markii loo xilsaaray iyo tan labaad oo iyaduna ahayd in lagu eedeeyay tuhun musuqmaasuq waayo warqadda madaxweynaha waxa ka sii horeeyay baaritaan guddi heer sare ah oo loo saaray arrintaas inay fiiriyaan oo magacaabay taliyaha ciidanka qalabka sida Soomaaliya General Odawaye Yusuf Raagi arrimahaas oo dhan marka ay halkaasi marayeen waxa ku xigay sheekooyin kale oo u eg kuwa iyaguna si darsiyay xaaladda inkasta oo ay u muuqatay in ra'iisul wasaaruhu arrintaasi aad uga jawaabay isla markaana uu aad u dadfeeyay kuna tilmaamay faragelin haddana waxaa xigtay in uu ra'iisul wasaaruhu ku eedeeyo madaxweynaha in xafiiskiisa la isku dayay in khalkhal la geliyo isla markaana bawal soo dhufto ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu sameeyay wuxuu ugu yeeray khaladaad weyn markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha waxa ka muuqatay cara aad u baahsan isla markaana in ay aad u dhibtay dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo talaabooyinkii la qaaday waxa laga arkay xafiiskiisa oo laga dilaaciyay isla markaana laga xaaray sawirkii astaanta qaranka oo ahaa markaasi madaxweynaha ujeedada sawirka loo saarto madaxweynaha meeshaasi waa inta badan dalalka ay madaxweynuhu u ka yahay astaanta qaranka oo loola jeedo in dalkaasi uu madaxweyne leeyahay qofka halka ku sawiran uu yahay madaxweynaha wax kale oo xigmad oo saas u badan kuma jirto laakiin si kale marka loo eego waxa kaliya uu taagay dalkaasi in madaxweynaha inta uu leeyahay dawladdaas ay tahay dawlad rasmi ah tusaale ahaan haddii madaxweynuhu meesha ka baxo ama uu fila Soomaaliya ka guuro ama se madaxweynaha talada laga qaado dalka waxa uu noqonayaa kumeelgaad si automatic ah sida shuruucda dunida oo dhan qabaan waayo qofka ugu sareeya ee madaxda dalka ka alaanta fulinta marka uu meesha ka baxo oo uu kaga baxo markaasi sababo aan ahayn dhimasho ama xilgudasho la'aan cudur ku imaaday oo aan markaasi gudoomiyaha baarlamaanka uu talada la wareegin waxay taasi keenaysaa arrin halis haddii se madaxweynuhu si kastaba ha noqotee uu fiilada ka baxo waxa fiilada fadhiisanaya gudoomiyaha baarlamaanka sida dastuurka federaalka dowladda Soomaaliya uu qabo waayo waxa la diiday in dalka uu hoos u dhaco statuska waxa loo yaqaan ama marxaladda dalka tusaale ahaan in dalka uu hoos ugu soo dhaco kumeelgaad ama xukuumad xilgaarsiin bedelka uu ahaa laha qaran heshiisiye galaya safiirada dalka imaanaya la aqbalayo sidoo kale laga hadlayo arrinta bixitaanka ciidamada shisheeye iyo qodobo kale oo waaweyn arrimahaas oo dhan waa arrimaha dawliga oo san dadka Soomaaliyeed badankood aad u aqoonin gaar ahaan dadka yaqaana waxa ay ku tilmaamaan wax uun dan u ah dalka si guud ee aan dan gaar lahayn hase yeeshee eedaynta ra'iisul wasaaraha ee ahayd madaxweynuhu inuu isku dayay afgembi ayaa waxa ay noqotay iyaduna narrative ama sheeko kale oo dhinac oraday tii baaritaanka musuqmaasuq labada arrimood waxay si weyn u soo jiiteen warbaahinta reer galbeedka iyo dunidu markii hore waxay si weyn u faafiyeen dhacdooyinka iyo eedaynta ku saabsan musuqmaasuq waxa la arkay 10 warbaahinaha caalamiga oo ciwaanada weyn ka sameeyay arrintaasi taas oo dhanka kale marka la eego in ay muujinayso in mustaqbalka ra'iisul wasaaraha uu mugdi galay maadaama lagu eedeeyay arrin aad u weyn inkastoo musuqmaasuq uusan wax saa uga weyn Soomaalida qaarkood aysan u arag laakiin dunidu wuxuu ka mid yahay dambiyada halista
arrinta kale ayaduna qabsatay mar kale warbaahinta waxaa weeye hadalka ah in uu wadanka ka dhacay afgembi inkastoo afgembigu uusan u xoog badnaanin sida ciwaanka hore u xoog badnaaday haddana warbaahino waaweyn ayaa isaga laftiisa daabacay taasina waxay mar kale muujisay in Soomaaliya warbaahinaha waaweyn ay si weyn uga warhayaan dhacdooyinka ka soconaya iyo in mararka qaarkood Soomaalida madaxa la isku garaacay dhinaca kale waxaa iyaduna soo baxay arrimo kale oo fasiraad u baahan waxaa markiiba safaf dheer soo galay dawladaha ay ugu waaweyn yihiin Mareykanka Ingiriiska iyo kuwa kale oo iyagu isugu yeedhay inay yihiin saaxiibada Soomaalidu way ku kala aragti duwan tahay inay dalalkaasi ay dan gaar ah ka leeyihiin Soomaaliya iyo inay caawinayaan inta badan Soomaalidu arrintaasi si kale ayay u aragtaa intayna eegin aragtida dadka Soomaaliyeed iyo ficil celinta arrintaasi ka dhashay marka u horeysa aan eegno xoga waxaa markii horeysay bilowday kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa sheegtay markii ugu horeysay inay telefoon kula hadashay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Hurfadhi Media waxay u korkashay waxyaalaha la isweydaarsaday Mareykanku waxa uu ku taagnaa oo kaliya arrinta doorashada waxayna sheegayeen in cidda kaliya doorashada hadeerta wadi karta ay tahay ra'iisul wasaaraha maadaama hadii la yiraahdo ra'iisul wasaaraha doorashada dib hal looga soo celiyo ay qaadanayso muddo aad u dheer in dib looga laabto taas marka loo eego waa arrin daw ah waayo in haddana ra'iisul wasaaraha laga soo celiyo doorashada oo lagu celiyo qof kale oo hogaaminaya ayadoo xataa madaxweynaha qoraalkiisii ahaa in la raadiyo hoggaan jahee kara doorashada ay muujinayso in isaga laftiisa uusan diyaar u ahayn inuu doorashada mar kale halabsado waxa ay taasi dib u dhigaysaa dibdhac aad u weyn ku keenaysaa nidaamka dimuqraadiyadda ee dalka waxayna sidoo kale ay hadal geli kartaa doorashada awalba muddo dhaaf ka ahayd taasi waxay noqon kartaa dhibaato aad u xooggan waana taata Mareykanka uu ku adkaystay dad badan waxay u fahmeen in ra'iisul wasaaraha uu Mareykanka u hiilanayo laakiin sida aan ku helay xogta ra'iisul wasaaraha laftiisa waxaa loo sheegay in uu joojiyo waraaqaha iyo waliba in xaaladuhu ay sii darsadaan iyo wax kasta oo xaaladda sii xumee kara isla markaana uu awood soo dhan uu isugu geeyo hirgelinta doorashooyinka madaxweynahana waxaa lagu yiri waa in ra'iisul wasaaraha iyo madashaba aad ku taageertaa in uu shir ku qabsoomo tusaale ahaan waxaa si gaar ah looga codsaday madaxweynaha in saddexda maamul goboleed la aaminsan inay dhankiisa u janjeeraan uu ku booriyo inay ka soo qayb galaan kulanka qaarkoodna ay si dad u dhaqsaha badan uga noqdaan go'aamadii ay qaateen ee ahayd inaysan imaan doonin Muqdisho Ingiriiska laftiisu sidaas si leeg ay sheegeen waxaana mar walba carabkooda ay ku soo noqnoqonaysay arrintaasi dalalka yaryar ee Yurub ay ka mid tahay Sweden ayaa sidoo kale iyaguna arrimaha Soomaaliya ka hadlay waxay ku tilmaameen in arrinta doorashada ay u tahay mahuraan isla markaana ay taageersan isku soo wada duuduub marka arrintaasi laga yimaado waxay arrintaasi ka dhalatay daadad caaridaada oo Soomaalida ka timid baraha bulshada gaar ahaan barta Twitter-ka Soomaalidu waxa ay ka samaysay kacdoonkaasi wuxuu ku faafay qaaradda oo dhan markii dambana waxaa soo baxay hal abuur ama hal ku dhig waxa loo yaqaan Hands of Somalia oo macnaha ay tahay faraha Soomaaliya laga qaado waxaa kaloo jiray hal ku dhig kale oo mar hore loo isticmaalay Ethiopia oo ahaa no more ama maya mar dambe ta labada arimood oo iskaashanaya ayaa waxa ku soo biiray kumanaan qof oo qaaraddu waxay khaatibilaahi sheegeen inay ka taagan yihiin faragelinta reer galbeedka waxay bedelka ay doonayaan in aan wadamada waxba loo meerin wixii habsamay u socodka dhinaca diblomaasiyadana la asturo ugu yaraan balse dalalka Afrika kaliya ay yihiin kuwa la isku soo qaawiyo ee arrimahooda laga yeeriyo baraha bulshada iyo sidoo kale in madaxda telefoonada loo diro hadhowta la shaaciyo iyadoo lagu tooqayo marka hadaba la soo duuduubo dalalka reer galbeedku waxa iyagu ay ku taagan yihiin hal arrin diblomaasiyiin kuwa reer galbeedka aadka ugu dhow waxay Hurfadhi Media u xaqiijiyeen in aysan jirin kala jeclaysi hogaamiyaasha hadeerta balse ay jirto nidaamka iyo mabaadi'da dhinaca wax loo wado inay ku kala aragti duwan yihiin Farmaajo salahan Farmaajo wuxuu doonayaa in ay ciidan aad u xoogan oo fara badan oo Soomaaliya u dhiso kamana mid ah siyaasadda Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka qaarkood ay arrintaasi ku jacsan yihiin siiba dalka Ingiriiska ayaa lagu tilmaamay asagu inuu san raaliba ka hayn in ciidanka Soomaaliya ay ka bataan 18,000 askari ujeedka ugu weyn oo kale yahay waxa weeye badqab in loo raadiyo dalalka dariska ee Ethiopia iyo Kenya wuxuu u arkaa in ciidan iyo cudud xoogan oo Soomaaliya soo noqota ay la mid noqon doonto T77kii qirbaxada kula ku dhufatay Ethiopia dan badan uguma jirto waxayna aaminsan yihiin Soomaalidan casriga ah ay arrintaasi ay ku noqon karto mid ay ku jihayaan colaad dhinac kale u socota waayo waxa ay wararku sheegayaan in Soomaalida in ayagu ay mar walba madaxa la soo sii garaaco ay tahay danta ugu weyn ee ragaadi karta laguna daahi karo cudud xoogan oo Soomaaliya mar kale soo noqota mabaadi kale ayaa laga urinayaa Farmaajo sida ay wararku sheegayaan ay kamid tahay arrinta loo yaqaan isdhexgalka gobolka Geeska Afrika taasi marka laga yimaado inay dalalka reer galbeedku ay ku dhaliilayaan arrimaha xuquuqul insaanka ee ku xeeran qaar kamid ah hogaamiyaasha oo kamid ah kan Eritrea waxa ay sheegayaan in madax banaani iyo kasiibasho awaamiirta ay meeriyaan reer galbeedku aysan hadeerto ku jacsanayn dalalka qaarkood رئيس وزراء محمد حسين روبلي وحلو أركي نين مركز دلنيرة أو ده إنكستو ويهيدت كدلنيرة لقطريو
da dhexe ah ama wax loo yaqaan the middle age sidoo kalena ah waaya arag in badan qurbaha soo joogay oo arkay dhibaatooyinka Soomaalida haysata dad badan waxay aad ugu tooqayeen kuna taamayeen inuu wax ka qaban doono dhowr arrimood waaweyn waata koobaad inuu aad wax ka qaban doono kala aragti duwanaanta Soomaalida isla markaana uu dhexdhexaad noqon doono iyo talabaad oo ah in wax loo maleynayay deganaan xooggan iyo odaytinimo ka muuqatay uu ku xalli doono muran kasta oo isaga iyo مسؤولكي مقعابي ودحيا كرايا لكن أرماس dadku waxay ku eedeynayaan inay dhaxboodeen siyaasiyiin iyo xubno markaasi hoose oo siyaasadda qaarkood hadeertay ku cusub yihiin kuwaas oo arinta dhinac kale u jeeyay marar badan fasiraado dhinaca markaasi qabiiliga ah ku laray arin qadiyad dhinaca siyaasadda balse marka la isku soo koobo oo la soo duuduubo Soomaaliya loolanka ka taagan maaha loolan qabiil waana arin khalad u ah qofkii taas aamina waa arin dan shakhsiyadeed iyo dan markaasi dib u doorasho tusaalahan farmaajo xudoonaya in dib loo doorto halka madaxda kalena ayagu ay doonayaan inay wada kasta u maraan inay farmaajo xilka uga qaataan ayaguna kursiga ku habsadaan oo kursiga qaataan balse dadka qaarkood waa laga yaabaa in loo isticmaalo kaadha dhinaca qabiilka gaar ahaan kuwa aragtida gaaban kuwaas oo ayagu ku qaylinaya mar walba arrimaha qabiilka isla markaana buun qabyaaladeed garaacaya waase wax u eg tanaag lagu shaqaysanayo iyagu aan fahansaneyn waxa la kala faa'iideeyo waxaysan ogeyn in siyaasigu maalinta uu jaranjarada fuuro oo albaabka ka xidha doono amaanaal